kabacdi markii asaguna xuquuq beelo wareeray anigana dagaal galay ya aan systemkii waa isku darbaalanay la nicil qaba salam mugtaadi bishii 500 shahshaha labada nasiib ilaano cidna ma shaqeyn mugtaadi ayaga dagaalna uma galna waxna uma qaban mugtaadi 500 shahshaha okay markii kale aan shaqo tagnana kun kaar koos ana la siiyo aniga meesha mantaqana muqdisho ma loo mantaqana birtaas aanu mantaqana aan wax sharciyo ka taaga weliga inta joogay niyo gaarigaas waxaan ka soo wadnay afguy waxaan dhignay qarxadaha village horteedaas meesha baabuurta lagu baakay maarta baakika dhinacaas hal baakin harin afgoyaan mooto ka raacnay waxaan ugu tagnay marka la yidhaahdo qarre meel sabiibi caana la yidhaahdo الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا برامج كينا قنقار شاشة waxaa inoo saaran kabtan Shariif Maxamed Barkhad Laayaan leh waa 3 konton jir mudug ku dhashay militariga ayuu ku soo jiray ilaa dawladii madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan darajada xidigle ilaa kabtan ayuu ka helay madaxweynayaal Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistee شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود مدحوينها هدا مدحلت كيسي هرا هذا شريف واكما إسقى يا إسقى حيو بسم الله الرحمن الرحيم وحانا هاي أنا شريف محمد برخلاء وحانا هاي شخصي كل شيء قبل كمدوب نن وحانا هاي لأن يرن مديسي كسرت قبل كمدوب 9 sano anoo jira ka soo tagay xamar baan soo galay xamar baan iska dhex shaqaysanahay intaas waa ku soo noolaa ka bacdi waxba uga sii gudbay waxaan galay intaas markaan soo socday ka bacdi oo nololahaas yararka ka soo gudbay 2000 ciidamada galay waxaan ka qaatay darajadii koowaad 2006 xidigtii hore ka qaatay waa socday waa joogay waa shaqaynaa intaas ana sarkaal ah 2010kii waxaan ka qaatay xidigtii labaad 2016kii waxaan qaatay kabtanka waan shaqaynayay intaas waa ku shaqaynayay nin iska shaqaysto sarkaalnimadiisa iyo ciidanimadiisa iyo wixii ku shaqaystaan ahaa xaas waan lahaa caruur waan lahaa deegaan buuxa waan ahaa caruurkii iyo xaaskii iyo waxay sidii igu buuxaan oo ay joogaan insha Allah ilaahay idankiis xaaladdu waxay soo socotay markii u dambeysay 2017 waxay nala soo gashay waxay socotaba xaaladahan hadda maanta meeshaan u fadhiyo way la soo gashay taliya urur ayuu soo noqday waa ururkee marka la magacaabo 2015 bishii lixaad in la magacaabo xasuustaa wara ayaan badanahay walaa xil adiga bil ka bacdi xasan sheekh markii xilka laga qaaday waxa hayay 26 bariyan ka bacdi hay xilka ya ururkaas wuxuu joogay baldoogle iyo yaqbari weyne iyo joogay
ururka labaad la oran jiray guutada lixaad ururkeeda labaad. halkan waxaan rabaa inaan doc kale idinkaga furo oo xiriirka barnaamijka ila galay sargaal hore maxamed cabdulla abkow cumar biyamaalow weerar airboortka ka dhacay Maaj 23keedii 2020 ayaa loo xukumay 14 Diseembar 2020 waad xasuusataan. haddaba jeega iyo biyamaalow midna xilkii ayaa laga qaaday kan kalena waxa uu ka haray habka diiwaangelinta elektarooniga ciidamada oo ah database ama online. caradii ay ka qaadeen waxa ay la safteen argagixisada waxa xiriirka kooxda keenay Dhamma Shariif Maxamed Barkhadle ayaan leh waxa uu helay xalana cali holac iyo Dakhare Maxamuud Dangad oo ay qaraabo yihiin. waxa ila gashay luuqan hadda ay hor fadhisin luuqan hadda qoraalka ka haysaan ay la soo gashay ya xagee iska hesheena waa mahadsan tahay anaa raadiyey nin aan aqaana raadiyey waxaan ka daawareegana waa helay ya magaciisa xalana la dhahaa xalana cali helo la dhahaa waxaan ka daawareego waa helay calaa kulli xaal mid kale ugu sii xiro asna aan islaanoo adeer oo balaayo meelahaas wareegaya ka bacdi kiina mid kale ugu xiriiriyey ya ها midka labaada daqare laba xidigley kabtan ayaa mootafay koona u qaatay iyagoo u socdaalaya heshiis dhiigdaadin ah laba iyagoo ah ayay ku kulmeen inta u dhaxaysa Afgooye iyo Sabiidi caano leh sidaas waxa weeye Afgooye mooto ka raacnay waxaan ugu tagnay ninka la yiraahdo Daqare meel Sabiidi caano la yiraahdo aan ugu tagnay waa la soo shirnay waa soo kala tagnay nin buu nagu xiray oo waa nagu beesgaray nin buu nagu beesgaray ala kulli xaal nin buu asoo nin iska tagay ma ogta nin buu nagu xiray marka aniga waxa ila socda Biyamaalow maxaa Cabdulla Abkow Shariif Jeego iyo Maxamed Biyamaalow militariga sumcad weyn ayay ku dhaxlahaayeen sababta wax kala ma aha ee waxa lagu bartay haliyey shahiid General Cabdikariim Yuusuf Aadan dhaga badan abaanduulihii hore ee militariga Allah u naxariiste waagiis horeba markuu ciidanka soo galay iyo markuu iskaasa iyo 3 sano dhaga badan la shaqeynay iyo intii sarkaal uu noqonay iyo heer laba xidigle intuu gaaray waxa soo dhan isku joogaray ku saaxanayn rag tira badan ahayno isku barnaamijkan marka hore kuma aan wada jirin oo qof ma taqaana naga mid ma ahayn al-shabaab la tusaa naga mid ma ahaynba ka bacdi markii asaguna xuquuq beelo wareeray anigana dagaal galay ya aan systemkii waa isku darbaalanay ilaa nicil qaba salaam waqti adig wax waran laga soo celino oo kale ku nool arintaas ku baxday waan isla garanay arintan inay wixii shaqaha la arkay la qabto nimanna xaabo maaha indhadeeg meesha la marayo haba waana halkaas waxba yaale ma taqaanaa wadinkaas halkaas meesha heblah hadaa geey kartaan macna haddaan niraano ma geynayno waa ma geynayno ma geey karna haddaan niraano waa ma geey karno halkaas ma geey kartiin ma geey karno ma geey haa waa geynayna keen systemku saas u shaqeynayay inaan isweydiino ma xume maxay kula tahay inay ku badasheen balaayadaasi balaay lacagaha qaadada leh lacagahan waan wari adiga lacagaha waxaan lagu heshiiyey bishii 500 shahshaha
labadeeda in la siiyo ilaa annaga cidna uma shaqeyno ma ogta adiga ayaga dagaalna uma galno waxna uma qabanno ma ogta adiga 500 oo shaashaaha okay markii kale aan shaqo tagnana kun raana koosta in la siiyo ka socod January 14keedii 2019 qaraxii ugu horeeyay ayay ku soo baakimeen hotelka iyo maqaayadda isku raranka ee Village niyo gaarigaas waxaan ka soo wadnay afguy waxaan dhignay barxadaha Village horteedaas meesha baabuurta lagu baakimo maarta باكي كدنا عصا هل باكي نادي أنا كتجن قارد ببشق دي سويريش هالكاسو كاسو بح أنت عن قرحة كلا فرنتو ده لحياة كل عادين وحنو بهنا فرسمة ده لو كان قاري قرح كبوحه لكن إسكموا على الجاجو أنا جايو نقول عليه جواب شا هل سؤال من سؤالي كلا أنت مغلسين أو قرح يهق يهم دعيسي سوتشك بنت مرهين كواس سوق جدين إفرنسية كواس سوق جدين وحوليه هدي براها أمنية الشقين لهاين ما لها مهم كعاصمة قرح مسكين مع لها ما ورث الأركان شك بنت هدي سيدة ما وحلو علنا وحلو على كرو حمر قرح مكان علا هذيك زي واحد كذي نمو شكمنت هدي بحلو بارها يا فيري شكمنت هدي بحلو بارها يا أما دولة نمو الله شقينا حمر صابئي حمر وين يقرح مسكين مالها ما يا حقل ضمننا ذيك بالواي هاي عند عدس دير كدي بواتن فرسمة لو كان قاري قرح كبوحه إيه دكار متقنع ذيك إيه دكار قف كوتا قف إيه دكار وذننا wax uu gudbi karo ma jirto waa isla fahanay waxa uu sanasiiyay tusaale ama kaaga mana ku haysto inuu si faahfaahiyo maantaas malka nin ana tagay naga daawarkeeda wixii iga haray xagee ahayd lambar afar iga haray malayna abkow halaas iga haray February 2019 ayuu isticmaalay kaarkiisa waxa uu kaga gudbay Muqdisho Mall jagboontiga laga galo waana marka uu ku kaliyahay fulinta dhagar ay ku geeriyoon doonaan muwaadiniin inta la diiwaan galiyay tiradoodu ahayd 16 qof hal bir waaya sharcan waa leeyahay laakiin qof aan sharci lahayn ya qof aan sharci lahayn meel ma mari karto inta kaleeto waxaa badanaaba aniga meesha mataqaana Muqdisho ma la dhaha mataqaana birtaas aanu mataqaana aan wax sharciyo ka taaga weliga inta joogay ma xisaabsana inta aan liiska ugu jirin dawladda isla dhacdadaasi waxaa ku dhaawacmay 38 qofood ka badan waxaana musiibadaasi diiwaan gelisay kaamirada qarsoon ee amniga CCTV March 28keedii 2019 Maxamed Cabdulla Abko Cumar Biyamaalow ayaa gaari qarax ah ku dhinac baakimay maqaaxida baar caga weyne ee Kisbilan restaurant waxay u dhowdahay hotel Wehliye Shariif Jeego ayaa ka sheekeynaya ogaalkiisa qaraxaas anigu iska socdaan ku yiri waxaan ka xagga dekada ka imid asaga marka soo wacay moogta waraa xagee joogtaan xaggaas dekada ka socdaa waxaan socdaa filim baadhay xaafadii sidii meesha dabka iga soo mar ya bajaaj saaranaha markii aan iska sana moogta u galay moogta saas marka soo kala wareegay aan u jeedo asagoo gaari ka degaya isla markii waxa si soconana yaa aray sawa arrinkan haka gala kula adiga
adiga maxaa kaa galay mootada le hore igu sii qaad ku eriyey waxaan ku adiga carro dhegay miyaan ku eriyey haye waa dha haye ya waxaa ku naf waayey 11 qof inta la xaqiijiyey 16 kalena waa ay ku dhaawacmeen 27 May 2019 xilliyada afurka camal waqtiga Muqdisho ayaa qarax ka dhacay argada Liido waxaa soo wada baakimay Biyamaalow iyo Jeego kaas afgooyan ka soo ya afgooyan ka soo saan usii soconay meel kale iyo wareer kale iyo ma ana gelin ma leexleexan sii soconay meesha jabalada xagga abaarta oo markii maqaayadaha la dhaafo meel oo dhagxaana oo taalada dhinaceedaas taalada afka u saar waana ka tagnay laba mar ayay qaraxyo dhex geeyeen Villa Baydhabo oo aan gawaari ahayn qaraxyadaas waa la dhigan koor meesha la iska dhigo meeshaas uu yaala ma taqaan marka meeshaas ma yaala tabeelahaas hebel la markaas la hoostiisa waa laga soo qaaday guriga caanad iridda laga galo derbigeeda meel gaari yaalay oo qawaara iska hoos dhigo derbi xataa ma isa jabin wax awood ay ku jabisa xataa ma lahayn derbiga waxuma balowka awood ay ku jirtaan fash inta tiri meel oo saana kale geed talaalo la hoos harsada leh iyo gaariga dhexdeeda fash inta tiri meel dhala dalalsata wax awood ma lahayn waa midda dhahaysay ninka aan sheegaysay oo afdheere asaga carraa siligaa mudan birma mudan afdheeraa sheegaysay korneelka siligaa jeexasay ordaya waa meesha ka cararay midkii labaadna waa midka oo garas baaley isagana jid garas baaley korkeeda ka leexda meel baa la hoostiisa isagana la dhigay baalla waxaan lagu calaamadeeyay moogta baalaha lambarkaas leh hoostiisa isla meesha la dhigay isagana isla soonihii agteeda waxa dhan derbiga caanadu waa ala kulli xaal maadaama ay xarfaan iska ahaayeen kuna badasheen nolosha dadka $500 bishii iyo $1,000 oo ah fulinta dhagaraha guraacan haddana Shariif Jeego waxa uu nooga jawaabayaa haddii khawaarijta lafteeda uu ku dayay ama uu wax ka farsamaystay waa baakimo adiga warwa saali salaama wasa saali ni ayanta waa gaabinaysaa waxba si ka ah markaas seex iga soo ujeeda shaqeynaa waxa la yiri waa markii isugu kaaga dambeysay adinku qoraalka ka arki doontiin moogta waa markii isugu kaaga dambeysay waxa la yiri gaariga noocaas meeshaas yaala soo wado alaabta saaran meeshaas noogi qoryo waaya qoryo meeshiisa asagoo yaalan alaabtii fiirshay waa fiican yahay alaabta waa fiican tahay waa soo waday alaabtii aan kala baxay qoryo aan kala baxay maxaad tiri saddexdii qori waa ka qaatay gaarigii meelaan dhigay adigu waxay iga daba wareegaan telefoon quuqay qararacay gaarigii qoryaha aaway meeshaan ku niri noogee waa markay arkeen inaan qoryo meesha ka socon ay yidhahdeen gaariga ninkaas hebel aan usoo dirsanaynaa noogu dhiib gaariga laftiisa waaba haddii wax iga waxaysta maalmo dhawaa wala raajiciyo laftiisa calaa kulli xaal waxa la ninkaas noogu dhiib gaariga hay-adda nabad sugidda waxay ogaatay in gafkaasi uu ka galay argagixisada uu ku bedeshay qarax 18 Diseembar 2020 ka dhacay Gaalkacyo anoo hataa ka tirsan 22aad galmudug anoo ka tirsan hal dooradii ku dhintay qaraxaasi waxaa ka mid ahaa
taliyihii qaybta 11aad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qoojo dagaare taliyihii ciidamada danab qaybta galmudug korneel mukhtaar cabdi aadan duqii hore ee degmada gaalkacyo qaybta puntland maxamuud yaasiin axmed tume qaraxa ayaa ka dhacay garoonka cabdulaahi ciise oo ay xilligaasi ka socotay qabanqaabada soo dhoweynta maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore ee federaalka dembiyada uu galay shariif maxamed barkhadle ayaan lama yaro cadow axmed cabdulla carab oo xukunsana xabsiga dhexe ku jira ah ayuu ka iibiyey hub ay dowladdu leedahay 2 hoobiye iyo 40 xabadihiisa ah kiya aroora waxa ku haya qoryahaas ku haya noocaas iyo rasaastaas ku haya ana wacay carabkan hadda wallahi ma yahay إلهي والله شيرو وكذا نيو أنا هذا وافقها كوده يا وحمر الجرا ويل ولا الكي ولا وين شوقه أنقصه درسنا يا ووحي ولا وين يملاس بالدقل يقصو قلا يسوق كذا ميا هي يا قشن كيو لأنه وحي أزود أروش meel oo wala weyn iyo u dhaxaysa mataqaanaa ee wala doogle oo wadada geeskeedana aan bataqosi way lacagta soo dir ay lacagtii qayb adu si ii otay qaadaro ila galay waxa uu inooga jawaabayaa haddii ay jiraan farsamooyin kale oo ay kooxda argagixisada ku dhex geli karto saraakiisha shaqayso laba waxyaaloodba waa isu jiraan dad ogta qaar wadnaha ka dhintaa jira moogtaadi qaar wadnaha ka dhintaa jira dadka oo la leeyahay meeshaasaa joogtaa haddii oo annaga afaarahayga faragashatidna yaa والله هذا يجيك بنتي أشوف تو اللي وينه أنا أهين سمان وحاقون ديار يا أنا كلا صوت bal waayahay sheekadiisa waa iska soo gabagabeynayna sidee ayuu ku soo gacan galay ayaad isweydiinaysaa waxaan maqli jiray gacantii qaad barataa gumudkeeda dhaqdhaqaaqa isagaaba telefoonka ka wacay maxamed cabdulla nuur abkow biyamaalow kadib weerarkii airboortka 23 maaj 2022 أصيّا وع بيماله ولفس سامع أنا وراه هاي نعلا قرندمس كله لك ويا قرندمس تا قرندمس كله لك هذا عيا استعر هذا عي من الجوار قبلنا مداري قالوا كله نك إيربورك شيادين تقلي وأديك أركاسيري حار يا أنا ما والله صار إيه دلالة أديك قالش كل شيء وسه هالدر بقول إنه أديك تاي أوكي الصيد هنا وحوارنه يا يقول يسوي كسر عضبة قلبه ما أدري قلبي رقص هذا الدم قلع عرب وقت أديك وهذا الدم قلع عرب ما عرف يقول يسوي ساعة قبل لا يصير وحوي سمكار كبدشابه waxa uu dhuuntaaba waxa uu isku dhex qariyaa ciidanka waxa uu markii dambe xataa u xubsiibtaa hoggaanka caafimaadka si aan loo fahmin waxa uu qortay xitaa fasax si aan loo helin ugu dambeyn hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa shartiisa ka qarisay dadka iyo dalka 19 Oktoobar 2022 7 January 2023 ayuu soo dhameystay habraacyadii maxkamadeed kabtan shariif maxamed barkhadle ayaan leh 12 January isla bisha sanadan 2023 ayaa lagu xukumay shariif maxamed barkhadle ayaan leh dil toogasho